wiilkii wuxuu rabay inuu noqdo cowbay reer galbeed ah, sidaas darteed wuxuu ka qaaday aabihiis desert eagle wuxuuna ka tegey qorigiisii ciyaarta. kadib wiilkii wuxuu bastoolada u tilmaamay hooyadiis, laakiin waxay u malaynaysay inay tahay bastoolad been abuur ah. markaas wiilkii wuxuu soo raray rasaas oo wuxuu jiiday kicinta. muusikada nasiib wanaag waxay ahayd rasaas madan. kadib wiilkii wuxuu bastoolada u tilmaamay aabihiis, laakiin markan xabaddu ma aysan ridin. aabaha ayaa ka xanaaqay xumaanta wiilka wuxuuna weydiistay inuu dibadda u baxo. waddada wiilkii wuxuu la kulmay boosto. ku dheji. boosto hayaha ayaa isla markiiba gacmihiisa kor u taagay, isagoo sheeganaya inuu yahay muwaadin sharciga u hoggaansama. si dirqi ah ayuu uga badbaaday dhimashada. dhanka kale aabbuu wuxuu ogaaday in bastooladiisii dhabta ahayd lagu beddelay alaab carruureed, rasaastuna ay dhammaatay. wakhtigan xaadirka ah wiilkii wuxuu aaday suuqa. wuxuu fuulay faras ruxaya oo si aan kala sooc lahayn ayuu u jiiday kicinta. isagoo ku fikiraya inuu yahay cowboy. markii wiilku faraxsanaa, gabadh ayaa timid, waxayna sidoo kale rabtay inay fuusho muusikada faraska. aabbaheed wuxuu siiyey wiilka lolibob oo wuxuu wiilka hoos u qaaday. wiilkii aad buu u xanaaqay. snots faras fadlan. markaa wiilkii wuxuu soo raray rasaas kale oo jiijiiday. nasiib wanaag rasaastu ma aysan dhicin. sidaas oo kale ninkii si dirqi ah ayuu uga badbaaday dhimashada. kadib wiilkii wuxuu galay suuqa. wakhtigaas hooyadu aad bay u walwalsanayd. waxay ogaadeen in wiilku uu aaday suuqa. marka waxay halkaas u kaxeeyeen si ay u raadiyaan wiilka. markii hooyadu timid suuqa, waxay wiilkii meel walba ka raadisay. si lama filaan ah, wiil cowbay ah ayaa soo muuqday. tani waxay soo jiidatay dareenka haweenayda, waxayna ka dhigtay inay seegto wiilkii gadaasheeda ka dambeeyey. wiilku wuxuu raray rasaas. bistooladu horeyba way u boorsantay. muusikada qofkii xigay ee ka xanaajin lahaa wuu dhiman lahaa. wiilkii ayaa bistoolada u tilmaamay haweenaydii iibinaysay. gabadhii iibisay muusikada waxay siisay gabal nacna ah si wiilku uusan u toogan. gabadhii aad bay u nasiib badnayd. kadib wiilkii ayaa mar kale la kulmay aabaha iyo gabadhiisa. markii uu ku dhawaa inuu toogto, wiilkii cowbayga ayaa soo jiitay dareenka wiilka muusikada. ninkii ayaa si dirqi ah mar kale u baxsaday. wakhtigaas hooyadu waxay wiilkii ka wacday sameecadda. gabadhii iibisay ayaa ku wargelisay in wiilku uu dhammaantood ka tegey. waalidkii wiilka ayaa dibadda u soo baxay. si lama filaan ah waxay maqleen rasaas. muusikada nasiib wanaag waxay ahayd digniin been abuur ah. dhawaaqa hadda wuxuu ka yimid cilad gaari. wakhtigaas wiilkii ayaa hore u aaday guriga. albaabka ayuu ka soo galay oo wuxuu arkay muusikada oo keliya kalkaalisada guriga joogtay. wiilkii ayaa kor u qaaday bastooladiisa. isagoo doonayay inuu ciyaar la ciyaaro kalkaalisada, laakiin kalkaalisada dan kama gelin. wiilkii ma quusan. wuxuu bastoolada u taagay kalkaalisada. aabihii ayaa joojiyey wiilka wakhtigii loogu talagalay. nasiib aad u weyn ayaan u lahaa inaan cidna wax dhaawac ah gaarin ugu dambayntii. marka su'aashu waa kan. ma haysaa carruur xun oo sidan oo kale ah oo hareerahaaga jooga?